another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your boy. dhammaan ciyaartoyda kubadda cagta Hindiya ayaa lagu soo kordhiyey koobka adduunka. Finalka ayaa lagu doodaa xafiisyada iyo goobaha lagu ciyaaro, iyadoo Messi uu yahay shay aad loogu riyaaqay. Waxaa soo diyaarshay Salaymaan Cumar Wadajir. Kumanaan dalxiisayaal Hindi ah iyo shaqaale muhaajiriin ah ayaa lagu arkayay garoomada ciyaaraha koobka adduunka ee Qatar. Joogitaanka Hindiya ayaa si gaar ah ugu xooganaa ciyaaraha ay ciyaaraan kooxaha Koonfurta Ameerika. Diiradda Superstar Lionel Messi. Xamaasadda Argentina, taageerayaasha ka hor kulanka gruubyada Argentina Mexico ee koobka adduunka ee Qatar. Qof kasta oo u malaynaya in Hindida keliya ay jecel yihiin cricket-ka ciyaar ahaan waa qalad cad. Sababtoo ah koobkii adduunka ee Qatar, taageerayaasha Indiya ayaa si gaar ah u joogay tarabuunka garoomada. Waxayna taageerayaasha Hindidu aad u jeclaayeen kooxaha waaweyn ee Koonfurta Ameerika. Brazil iyo gaar ahaan Argentina iyo Superstar Lionel Messi ayaa kasbaday qulubta taageerayaasha Indiya. Mid ka mid ah sababaha tirada badan ee daawadayaasha Hindida ee garoomada ciyaaraha ayaa ah tirada badan ee dadka asal ahaan ka soo jeeda Hindiya ee ku nool Qatar. Qiyaastii 5% qiyaastii 9 milyan oo qof oo Qatar ku nool ayaa ka yimid Hindiya, kuwaas oo intooda badan ay ku nool yihiin sidii shaqaale soo galooti ah Imaaradka Gacanka Carabta. Laakiin shaqaaluhu kaliya ma daawadeen koobkii adduunka ee Qatar. Dad badan oo Hindi ah, koobkii adduunka ee ugu horreeyay ee kubadda cagta ee dalalka Carabiga lagaga hadlo, ayaa sidoo kale ahaa kii ugu dhaqsaha badnaa ee taariikhda la gaaro. Duulimaadka ka imaanaya magaalo madaxda Hindiya ee Delhi kuna socota Qatar waxay qaadanaysaa qiyaastii 4 saacadood iyo badh. Diiradda saar Koonfurta Ameerika. Kaarka haya waa qasab in dhammaan dalxiisayaasha koobka adduunka ay galaan Emirates-ka Qatar oo ay galaan garoomada ciyaaraha adduunka. Wadar ahaan waxaa jiray in ka badan 2 milyan oo codsiyo dukumeentiga gelitaanka ah. Ku dhowaad 5.7 oo ka mid ah codsiyada waxaa sameeyey muwaadiniin Hindi ah oo ka labaad kaliya kuwa ka yimid Sacuudi Carabiya. Ugu dambayntiina, Lionel Messi kadib guushii semifinalka ee Croatia. Hindiya waxaa ku yaala taageere weyn oo kubadda cagta ah oo si cad u janjeera kooxaha ka socda Latin America. Shayon Bagji, oo Qatar ka yimid Indiya, ayaa u sheegay taageerayaasha dalalka deriska la ah Hindiya ee Sri Lanka iyo Bangladesh ayaa sidoo kale aad u soo jiitay dalalka Latin America marka loo eego kuwa Yurub. Dhammaan waxaan nahay waddamo dunida saddexaad ah, waddamo soo koraya. Qoraalka tifaftiraha malaha taasi waa sababta. Tusaale ahaan, markaad timaado Calcutta, waxaad arkaysaa waddooyin iyo dhismayaal midab jaale iyo cagaar ah, Brazil ama caddaan iyo buluug oo Argentina ah. Masiixa Mania ee Qatar. Xamaasadda xulka Argentina waxaa keenay hal shay oo gaar ah, Superstar Lionel Messi oo ugu dambayn ku guulaystay horyaalka Qatar markiisii 5aad ee koobka adduunka, sidaasna uu ku soo bandhigay waayihiisa ciyaareed oo aan horay loo arag. Messi waa ilaaha kubadda cagta, ayuu yidhi taageere reer Hindiya ah Dinesh Kumar. Ilaah uma baahna waddan, isagaa iska leh qof walba, sidaas darteed Messi sidoo kale qof walba ayaa leh. Taageerayaasha Argentina ee Qatar ayaa soo dhoweeyey taageerada dheeriga ee ay u fidiyeen xulkooda. Taageerayaal badan oo aan Argentina ka tirsanayn ayaa xidha maaliyadda Argentina. Federico Jose Orbuch, oo ah taageere kubadda cagta oo ka soo jeeda caasimadda Argentina ee Buenos Aires, ayaa u sheegay, waa wax cajiib ah, weligay ma arkin wax la mid ah meel kasta oo adduunka ah. Wuu yaabay oo ku faanay. Waxaad ka hadashaa Maradona, Messi waa wax cajiib ah. Waxaana uu u arkaa taageerada taageerayaasha dalalka kale inay tahay mid sax ah. Taageerayaashu waa taageere, ma jiraan wax been abuur ah, ayuu yidhi Federico. Taageerada ayaa xitaa aad uga qiimo badan sababtoo ah dadkan kuma dhalan Argentina, welina waxay dareemayaan funaanada. Wejiga ilaah taageere ka yimid Hindiya oo leh sawir ismuujin ah oo ah Superstar Lionel Messi.
maadaama shaqaalaha soogalootiga ahi aanay inta badan lahayn xuquuq codbixineed ama ay xadidan yihiin helitaanka adeegyada guud, inta badan si dhib leh looma oggola inay u guuraan guri cusub. Mishab Ikkabadat wuxuu ka yimid gobolka Kerala ee Hindiya, halkaas oo kubadda cagta si gaar ah looga jecel yahay. 4 sano ee la soo dhaafay waxa uu ka shaqaynayay warshadaha isgaarsiinta Qatar. Waa ammaan halkan Qatar, jawiguna waa mid aad u wanaagsan, ayuu u sheegay. Wax walba halkan ayay iigu fiican yihiin. Shaqaale Hindi ah oo isaga la mid ah ayaa ah tiirarka dhaqaalaha Qatar. Laakiin waxaa la wada ogsoon yahay in shaqaalihii soogalootiga ahaa ee dhistay garoomada koobka adduunka ee Imaaraadku ay ku bixiyeen qiimo aad u badan, qaar badana xitaa way dhinteen. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa qoray in sida laga soo xigtay safaaradda Hindiya ee Qatar iyo golaha sare ee caafimaadka Qatar, tan iyo markii koobka adduunka la siiyey Qatar 2-1, in ka badan 7-0 oo Hindi ah ayaa ku dhintay Imaaraadka sababo kala duwan. Waxaan jecelnahay waddamada kubadda cagta sida Brazil ama Argentina, ayuu yidhi Ikkabadat. Waan jecelnahay Pele, weeraryahankii hore ee Brazil, Ronaldo iyo dabcan Maradona, waan daawanay isaga oo carruur ah, waana u riyaaqnay iyaga. Riyada Hindiya ee koobka adduunka. Marka laga soo tago Messi iyo Argentina, taageerayaasha kubadda cagta Indiya ee Qatar waxay leeyihiin wax kale oo ay wadaagaan: rabitaanka inay arkaan dalkooda oo maalin uun ka qayb galaya koobka adduunka. Laakiin sida ay wax u jiraan ayaa u muuqda mid dheer. Hindiya ayaa hadda ku jirta kaalinta 1-6 ee qiimaynta adduunka ee FIFA, oo ku dhow dalal ay ka mid yihiin Madagascar ama Mauritania. Weligeed kama aysan qaybgelin finalka koobka adduunka. Laakiin tartanka ka socda USA, Kanada iyo Mexico ee 2-6, FIFA ayaa kordhinaysa tirada ka qaybgalayaasha koobka adduunka min 3 ilaa 4 ka qaybgalka koobka adduunka ugu horreeyay ee Indiya. Aad ayay muhiim u tahay Indiya inay u soo baxdo koobka adduunka mar uun. Krishna Mistry, oo daawanaysay koobka adduunka Indiya, ayaa u sheegtay Du. Laakiin haddii kale, weli waan jecelnahay kubadda cagta. Mastercraft on the beat.